ilaa iyo 6 qaab ayaa lacag looga sameeyaa. Kambanigan dadka badanaa waxaa soo jiida kusoo galaan qodobkan la dhaho lacag ka samee kambaniga Liverpool $247 iyo bar weliba adigoonan hal qof keenin without ever enroll a single person. Qodobkan weeye qodobka badanaa dadka soo jiita badanaa dadka kusoo galaan meelahan lagu xaysiiyo dadkana ku shaqo tagaan waa qodobkan loo yaqaano badanaa lacag ku samee kambanigan $247 bar adigoona cidna keenin. marka insha Allah tacaala waa isla arki doonaa qodobkaas meel ku qorto sida aad ku heli doonto lacagtaas iyo sida adoo hal qof aada keenin aad oga mid noqon doonto insha Allah tacaala dadka lacagta ka sameeya. waxaan guda geli doonaa 6 qaab ee kambanigan lacagta looga sameeya. intaan gudagelin qaabka lacagta looga sameeyo aan ku horumar qaabka isdiiwaangelinta ama registrationka kambanigan laisku registareeyo. waxaa laisku registareeyaa kambanigan ilaa 2 qaab baa laisku diiwaangeliyaa oo ah qaabka koowaad oo loo yaqaano yearly iyo monthly. qofka hadduu isku diiwaangeliyo yearlyga ama monthlyga hadaa ku hormaro waxaa bixinaysaa lacag dhan $53 $53 ama $50 hadaa banki akaarkaaga isticmaalayso $50 weeye. haddii USDT dadka sarifka aad sii maraysana lacag $3 ayaa ku raaci doonto. marka optionka $53 aa qaadato waxaa lagaa rabi doonaa bil walba inaad iska bixisid $10 oo ah akoonka tiradiisa. dad badan ayaa dhahaa ani $53 marka isku diiwaangeliyo haddana $10 usii socotaa. $10 waxay faa'iido ku leedahay akoonkaaga booska aad ka taagan tahay maanta inaad xajisato. dad baa dhahaya ani lacag dadna ma diiwaangeliyo ma haysto $53 hadaa meesha ku khasaariyo bil walba $10 aa geliyo maxaa ka faa'iidayaa. waxaa ka faa'iidaysa waxaa weeye dukaankan horta wuu ku kiraysan yahay. shirkadan aad baa loogu soo biiraya hadartan waxay maraysaa maalin hore gurbida lasoo dhigay 800 oo qof oo mimbara soo galay 1 milyankeedii wax yar baa uga haray insha Allah tacaala. already waxayna ku jirtaa hawadan 10 bilood ay ku jirtaa 800,000 mimbarna waa dareemi kartaa inta qof ay tahay. marka hadday sidan kusii socdo kambanigan uu sidan kusii shaqeeyo waa hubaal halkan waa laisku wada imaan doonaa waana laisku soo wada diiwaangelin doonaa insha Allah. marka lacagtan $53 markaad bixisid faa'iido $10 ee kuu leedahay waxaa waaye inuu akoonkaagii active ku yahay ama uu ku jiro ama dad keen ama ha keenin kambaniga haddaa mar is diiwaangeliso $10 wuu kaa rabaa ama optionkan $53 aa qaadato. marka $10 haddaad bixin weydo akoonkaagii active ma ahaanay wuu kuu shaqeynayaa kor ahaan wuu kaaga joogayaa laakiin haddii aad muddo ku jirtay maatarka shaqaysatay ee dad kambani kusoo dhigay ama adigu aad keensatay dad aad diiwaan gashatay waqtigii maatarkiska la kala qaybinaya ama bilaha dhammaadkooda waa la yaqaanaa bil walba inta maatarkiska lagu tirtiro markii la gaaro $10 shirkada aad ka bixinin akoonkaaga already kambanigan maatarkiski ku hoos yaalay ama adiga keenso ama kambaniga ha ku siiyo wuu kaa masaxayaa wax kuu shaqeynaya marka wax kuu shaqeynaya malahan dhammaan wuu kaa masixi doonaa insha Allah. waan $10 faa'iidada ku leedahay weeye haddaad mar iska bixin weydo $10 maatarkiskaas ay kaa masixaysaa. $10 faa'iidada ku leedahay maxaa waaye maatarkiska dadka ku hoos yaala ama adigu keenso ama kambaniga ha ku siiyo ay kaa masixaysaa laakiin wuu kuu jiri doonaa akoonkaagii. marka $10 markaa baxsato maatarkiskaaga ayaa kuu joogaya. optionka labaad la isku diiwaangeliyo waxaa waaye sanadle oo ah inaad hal mar iska bixiso $146 oo ah haddaa kaar bankiga isticmaalaysa inaad $140 iska bixiso haddaad lacag sarif aad maraysana $6 oo ziyaada ah ku darto. midaan marka yearlyga ah wax lagaa rabo ma lahan bilo lagama rabo 2 bilood discount aan ku jirto. $46 waxaa waaye isdiiwaangelinta iyo $140 inaad taa jeclaa xitaa $40 waxaa waaye isdiiwaangelinta $100 waxaa waaye membershipka. meeshas 2 bilood faa'iido kaaga kos bil walba $10 markaa bixisid 10 bilood kugu imaanaysa $100 marka optionkan $146 markaa qaatid bil dhan lagama rabo inaad bil walba $10 baxsato ama akoonkayga hormuu dhacayaa dheedkayga bishii ma la gaaray maxaa igaga haray waxaas oo dhan way ku daynaysaa keliya akoonkaaga waa fiirsanaysaa haddaad dad keensatay dadkaagaasaa la shaqaysanaysaa haddaad reer maatarkis tahay oo maatarkis aad sugaysidne akoonkaaga
waa iska soo booqanaysaa marka inuu shirkadda dad kusoo dhigto iyo in kale ka ogaanaysaa wabillahi tawfiiq khalaas waaye isdiiwaangelinta sanadle iyo bille xalaas haddaa uga baxno qaabka isdiiwaangelinta waxaan si toos u geli doonaa qodobada ama lixda qaab ee kambaniga looga shaqaysto lacag qodobka ugu horeeya haddaa ku horumarno waxaa loo yaqaanaa weekly fast start commission qodobka koowaad waxaa loo yaqaanaa weekly fast start commission oo ah qodobka isbuuclaha ah qodobka koowaad weeklygan waa lacagta soo dhacda isbuucii haddaad maqasheen isbuuc walbo ama habeenka jimcaha waxaa lacag laga helaa kambaniga leaf food waxaa ku qaada dhigi doona qodobkan insha allah markaad kambani ka mid noqoto oo lacagta mimbarka iska bixiso 49.9 senta iska bixiso kambaniga wuxuu ku ogolaan doonaa qof walba ee aad diiwaangeliso ee mimbar ka noqdo kambanigan ee lacagtaa bixiya waxay riwaad ahaan ama abaalmarin ahaan kuu siin doontaa lacag dhan $25 commission inaad ku yeelato qofkii aad diiwaangelisay next week weliba tusaale caawa kale oo sabti ayaad qof qortay beri oo kale axad aad qof qortay beri kale isniin qof aad qortay talaado labaad qortay isniin saddex baad qortay arbaca laba qortay khamiistaas lacagta soo dhacayso malihid waxaa leedahay isbuuca dambe lacagta dhacaysa baa soo gelaysaa micnaha tiimka todoba beri baa loo aruuriyaa lacagta weekliga loo yaqaano isbuuca hadda jimcaha soo socda waxaa commission leh wiigka hore dadka shaqaystay wiigkaa dadka shaqaystay waxay commissionkooda heli doonaan next week isbuuca aad diiwaangeliso isbuuca ku xiga aa lacagtaada leedahay marka dadaa waxay ku leeyihiin maanta kale qof qorayaan beriyo kale qof qorayaan jimciyo kale qof qoreena laga yaabaa khamiista markii la gaaro oo lagu soo wacaya waxaa lagu leeyahay caawad ka dheysa hadaa qorta lacagtood waa leedahay wax lacaga ma hayo caawan waa jimco gruubki waa laga soo wada hadlayaa dadka aad gruubka soo dhigay lacagta arkaysid isbuuca aadi shaqaysatay isbuucii ka horreeyay shaqaysteen soo lacagtooda sidaasay kusoo dhacaysa adna isbuucan haddaa shaqaysato next week aa leedahay halkan ku cad next week ayaad leedahay lacagtaadii $25 aheyd oo calaa qof aa ku leedahay marka haddaa usoo gudubno darajooyinka markaad tahay aan ranki aad tahay oo aadan darajo taagneyn kambanigan qofka koowaad ee daaragtiga adiga ka ah wuxuu kaa siin doonaa 50%. darajada midaan darajo ma ahan waa aan ranki weeye wax darajo ah malihid kambani waa kusoo biirta keliya lacagtaada iska bixisay qolka dukaankaagii baa kiraysatay bis halkaasa taagan tahay cidna aan ranki baa tahay cidna kuma hoostaalo keligaa baa tahay markaad baronsi noqoto oo darajada koowaad ee kambaniga aad gaadho mar walba qofkaagi koowaad waxaad ku yeelan doontaa 50%. markaad baronsi noqoto waxaa kuu furmi doono qofkaagii qofka keenay inuu ka heshid 10%. darajada labaad ee loo yaqaano silver markaa gaadhid asagana mar walba daaragtiga waxaad ku leedahay 50%. qofkaaga qofkuu sii keenayna 10%. tusaale qof aadu waxaad keentay ilaa 5 qof oo kala qortay 5tii qof baa waxaa sii qoreen 5 kale inay sii qoraan baa laga yaabaa weekend adoo lacag shaqaynin baa laga yaabaa inaad khamiista lacag hesho lacagtaas intay kaaga imaatay waxay kaaga imaatay dadka aad diiwaangelisay baa dad sii qoray micnaha ina fahanteena rajeynayaa dadka aad diiwaangelisay baa dad sii qoraya markay dad sii qoraan oo kale lacagtaadii weekliga ahayd way kuu soconaysaa already dhammaantood way kuusoo wada dhacayaan marka goldi markaa gaartid oo darajada saddexaad iyadana kambaniga waxaad ku yeelan doontaa qof mar walba daaragtiga konton baa ku leedahay ilaa waxaa lagu furi doonaa generationkaaga lixaad ama tiimkaaga qofka lixaad uu keeno ayaad lacag ku yeelan doontaa oo ah 2%. darajada platinumka markaa gaadhid iyadana mar walba daaragtigaaga 50% baad ku leedahay golli haddaad taagan tahay 50%. silver haddaad taagan tahay 50%. anranki markaad tahay 50% baad ku leedahay daaragtigaaga mar walbo 50% aa ku leedahay oo ah 50 markuu isku diiwaangeliyo inay $25 kaaga soo noqonayso 50 hadduu isku diiwaangeliyo 25 qof walbo daaragtigaa ku linkaaga kasoo talaalan lacagtaa $25 ku leedahay isbuuca diiwaangelisay isbuuca ku xigaa leedahay marka platinum markaa gaadhid ilaa waxaa lagu furi doonaa generationkaagii sideedaad oo ah aad ka heli doontid 100% inaad ka heshid oo ah darajada platinumka markaad taagan tahay okay darajada ku xigta oo ah diamondka iyadana waxaa lagu furi doonaa
mar walba daaragtigaaga waxaa waaye saa hor u sheegna inaa ku leedahay 50% waxay kuu furi doontaa shirkadda ilaa ay generationkaagii tobnaad markaa gaadho darajada diamond. marka adigu waxaa laga yaabaa inaad isbuucan wax daaragti aabad qorinba keliya aad tiimkaaga la shaqaysay isbuucaas daaragti ma lihid oo 50% maad helin laakiin waxaa kuu shaqeeyay intaana qofa kuu shaqaysay intaana qofaa dad kuu qortay lug walba daaragtiga qofku keenay 10% ka leedahay qofkaas qofkuu sii keenay 5%, kuu sii keenay 5%, kuu sii keenay 3%, kan kale 2%, 2%, 1%, 1% ilaa aad ka gaarto generationka tobnaad oo loo yaqaano 1% asaga inaad hesho. marka darajaba darajada ka sarreysa waa aragtaan way kasii micnaha waa laguu sii furayaa generationadaada marba midka kasii hooseysa waa sii gaarisaa goldiga markaad taagtid ilaa generationkaaga lixaada laguu furayaa silfar markaad taagantahay ilaa generationkaaga afaraad ilaa diamond aad ka gaarayso oo lagu wada furi doono ilaa generationkaagii tobnaad inaad lacag ka hesho. marka isbuucan haddaad dad qorin oo kale daaragti aad haysanin dadkaas dadka sii qoreen ayaa lacag ka helaysaa laakiin arranki markaa tahay oo waxba aad haysanin waxaa oga duwan tahay kuwan ku jira darajooyinka waxaad oga duwan tahay cidina maada qorinbo qofkii daaragtiga ka ahaa about 50% aad ka heli lahayd qofkiina maada qorin marka adi arranki markaa tahay wax weekly ah kuma tashanaysid maxaa yeelay qof daaragti ka ah ayaad isbuucaas qortay ama kambaniga aad kusoo biirisay ma jirin marka sidaas ayaad ku weynaysaa lacagta ahayd 50%ka oo $25 ahayd iyadana haddaa tahay anrankii isbuuca dad ma diiwaangelin dad qaaraa su-aal isoo weydiina oo dhahaya hal mar haddaa 5 qof qoro lacagta weekliga ma ii soconaysaa may kuma soconayso lacagtan weekliga waxay ku xiran tahay inaad qof qortid oo kambaniga aad dad kusoo biirisid qof aad shaqaysanin oo dee qof qorinbo wiigi lacag see ku heli maba helaysid meeshaan shaqaa taalo qof walba dad isbuuca dad soo diiwaangelinin lacag ma liid 5 qofaa hal mar qoray isbuuc walba lacag lama siinayo miya may laguma siinayo haddaa dad diiwaangelisid only ay shirkad lacag ku siinaysaa haddaa dad diiwaangelinina de isbuucaas lacag ma liid oo weekly ahayd kuma soo dhacayso marka qodobkaas koowaad ee weekly fast start commission intaas ooga baxayna haddaa fahanteen hamar jaadka 33 ha lagu soo qoro qodobka weekly fast start commissionka waa ka gudbaynaa insha allahu tacaala 33 jaadka liisii haddii la fahmay waa mahadsantihiin dhammaantiina sida ay la socotaan oo sharafta leh waxaa u gudbi doonaa qodobka ku xiga ee loo yaqaano ama qodobka labaad ee kambaniga lacag looga sameeyo ee loo yaqaano matrix commission marka hore waa maxay matrix commission matrix commission waxaa waaye qodobka labaad ee kambaniga lacag looga sameeyo kambanigan qodobkii adaay aa kasoo gudbeyna ee ahayd hal qof adigoo keenin ka samee lacag dhan $2,047 iyo bar haddaa xasuusataan qodobka aan ku qaadaa dhigi doono hadartaan qodobkan waaye qodobkan lacagtan dhan $2,047 iyo bar samee adigoon cidna keenin kambanigan qodobka ku qaadaa dhigi doono qodobkan insha allahu tacaala si fiican isku dhageysano waa maxay matrix commission waxaa la dhahaa in kambanigu dadku soo hoos dhigo dadka kusoo hoos dhigayana dee kambanigu asagu ma keenayo intuu toos usoo qoro adiga si toos kuma keenayo dadkaas kusoo hoos dhigaya line bay ku imaanayaan dadka kaa sarreeyey ama liidharada kaa sarreeya way kasoo daadanayaan levelaa jira leveladaas markay buuxsamaan already adiga levelka a ka taagan tahay markii lagu soo gaaro wixii lasoo qoro intaas qofna usoo buuxsamaan liidharka kaa sarreeya adiga markii lagu soo gaaro halkan oo kale aad taagan tahay lugtaada markii lasoo gaaro oo matrixka la joogo adigana si toos ayay ku hoos imaanayaan oo qofkii la qoro adiga ku hoos imaanaya lidka qofka lagu qoray lugtaan kale ku hoosgelisaa mid kalaa la qoray lugtaani ku hoosgelisaa mid kalaa la qoray halkan ku gelaya marka way kuu soconaysaa matrixka lagu sheegayo waxay ka imaataa liidharada kaa sarreeya ee shaqaynaya haddaad tahay qof matrix sugaya ama cayr loo yaqaana meelaha qaar matrixka lagu sheegayo liidharada kaa sarreeya waxay shaqaysteen dadka soo diiwaangeliyeen buu kambani kusoo dhigaya markay leveladooda u buuxsamaan marka matrixka lagu sheegayo waxaa waaye inta qof ee ku hoos taala buu kambanigu kuu xisaabinayaa bilo waaye isagana monthly ahaan buu ku shaqeeyaa matrixkaas inta qof ee ku hoos taalo buu kambani kuu xisaabin doonaa
يعني على قف حكاسين دونا 2.5% إنه كاسيو 2.5% تقول هاي درجة والدرجة كستا تاين تا قف والبيكوس يا لا أم كمبني جو كسوس ديجو أم أذوق كان سو ماتريكس أهم كمبني هكو هوس ديجو حتكون يالن دونتا 2.5% أيكو يالن دونتا marka inta darajo aad gaadhin ama aan ranki ahaw ilaa diamond taagno platinum ahaw gold ahaw mid walba aad tahay matrixka maxaa waaye asaga dadka darajo jooga iyo ha loo badiyo percentage-ka iyo ma jirto darajada haddaa mar taagan tahay ama aad taagnayn matrix waa loo wada siman yahay marka aan ranki markaa tahay waxaa sharxi doonaa qodobkii ahaa 2047 bar ayaad helaysa adigoosan hal qof keenin 2047 iyo bar waa kan halkaani ku xusan tahay waa aragtaan iyo bar marka darajadan hadda halkan ka muuqata waa aan ranki markaa tahay aan ranki markaa tahay ilaa waxaa lagu furi doonaa levelka 12aad ilaa levelka 12aad lagu furi doonaa marka levelka 12aad markii company kuu furo intaanu qofna ay kuu buuxsanto darajada level kaste inta loogu talagalay markay kuu buuxsanto level 1 oo kale markaa taagan tahay laba qof ay ku buuxsantaa oo darajada koowaad lagu gaaro level 3 level 2 markaa imaatid oo kale afar qof ay ku buuxsantaa level 3 markaa imaatid 8 qof kan kale 16 qof sidaasay kugu soconaysaa macnaha kan kale 32 qof isku dhudhufo mid walba laba ku dhufaadi saasay kugu soconaysaa marka level 1 kana kuu fadhiyo kale level 2 intuu kuu jira uu kuu buuxaa level 3 baa kuu buuxaa level 4 baa kuu buuxaa level 5 baa kuu buuxaa leveladaasa kuu xisaabinaysaa kambanigan mid walba inta qofka ku hoos taalaa xisaabsanaysaa labadan qof waxaad ku leedahay 0.5 ay kaa siinaysaa kambanigan 0.5 ay kaa siinaysaa afartan qof waxay kaa siin doontaa $1 saasaa ku xisaabsanaya macnaha halaas isku soo darsanaysaa inta lacag kuu noqoto uu kambani kuu xisaabin doonaa uu kuu soo diri doonaa markay dadka ku hoos yaalaan ee 2 bilood u dhamaato tusaale hadda adiga maanta kale isqortay 2 bilood ba ku jirtay waxaan hore lagaaga soo sheekeeyey in 2 bilood kadib aad qaadan doonto lacagta matrixka loo yaqaano 2 bilood kuu dhamaatay matrixkaagi waa eegtay dad way ku hoos yaalaan laakiin weli wax lacag aan maad helin waa oo daliirka u tagta waxaa tiri anigu 2 bil markaa gaaro inaan matrix helayd igu soo diiwaangelisay lacagna ma hayo maxaa dhacay meelo badan baa ka arkaa dad dhahay 3 bil baan ku jiraa 2 bil baa ku jiraa wax lacag matrix ma hayo matrixka 2 bil haddaa ku jirtid ama 3 bil ku jir dadka ku hoos yaala inay 2 bilood u buuxsanto ayaa sharad ah dadka ku hoos yaala maxaa laga yaabaa caawa kalena diiwaangelisay bil kadib ee ku bilaabato dadka lagu soo dhigay marka bishaas kadib dadka lagu soo dhigay iyaga maanta isqoray laga yaabay markaas lagu soo dhigay isqoreen marka macquul ma tahay bil kadib inaa lacagtoodii ka hesho may kama helaysid marka 2 bil u dhamaato waa ama adoo 2 bil ku dhamaatay oo weli cidna ku hoos oolin baa marka qofka ugu horeeyay lagu soo dhigay qof labaad qof saddexaad qof afraad markii adee 2 bil ku dhamaatay qofkan hadda isqoraa laga yaabo lagu soo dhigay marka asaga waa inay 2 bil u dhamaataa 4 bil way kugu qaadanaysaa qofkan 2 bil marka u dhamaato kadib aa lacagta matrixka ka heli doontaa lacagta matrixka ka helaysidna waa membership lacagta marka uu bixiyo qofka $10 kiradiisa hadduu bixiyo ama hamar yearly hadduu iska shubo lacagta matrixka 2 bilna ee u dhamaato lacagtaada matrixka banaanka waa marka qodobkan laguu sheegayo ee $247 iyo bar ayaad helaysaa adigoona cidna keenin qodobka qaadaa dhigi doono qodobkan waay oo ah aan ranki markaa tahay ilaa kambanigu wuxuu kuu furi doonaa levelka 12aad levelka 12aad markuu kuu buuxsamo maalinta kuu buuxsamo 1 sano kuu qaato 2 sano kuu qaato 6 bil ha kuu qaato 3 sano ha kuu qaato in allaale intay kuu qaato markuu kuu buuxsamo 12kaas level kambaniga waxba kaama hagranayo waxna kaama reebanayo $247 iyo bar banaanka waay marka aan ragi weeye kan markaa gaartid darajada koowaad ee loo yaqaano bronze markaa gaadhid kambanigu wuxuu kuu furi doonaa ilaa level 13 maalinta kuu buuxsamo asagana waxaa heli doontaa lacag dhan $4,095 iyo bar inuu ku siiyo kambaniga wuxuuna kuu furi doonaa ilaa levelka 13aad markuu kuu buuxsamo waaye matrixka lagu sheega waa levelada markay kuu buuxsamaan ayaad heli doontaa lacagta meesha hoose ku xusan qodobka ku xiga ay ah darajada ku xigta ee loo yaqaano bronze silver markaa gaadhidoo kale isku darajo waaye ama isku level lagu furi doonaa oo ah in lagu furo ilaa levelka 13aad asagana isku mid waaye marka asagana waa isku lacag oo ujeedaan $4,095 iyo bar ayaad ku leedahay markaa gaadhid darajada ku xigta ilaa levelka waxaa lagu furi doonaa 14aad
waxaan heli doontaa lacagna 8,191 iyo bar markaa gaadhi darajada ku xigta platinumka iyadana isku lacag waaye waxaan heli doontaa 8,191 bar darajada diamondka markaa istaagtid oo matrixkaagi lagu furo ilaa iyo levelka 15aad uu kumbanigu dad kuu geliyo uun kuu buuxsamo waxaa heli doontaa lacag dhan 16,383 bar marka adigoo $2,047 iyo bar intaa ku xisaabtami lahayd inaad ku xisaabtanto 16,383 bar maxaa kuu diiday oo darajada diamondka aad gaadho oo lacagtaas aad ku xisaabto intaa dheeda anuu dad ma hayo dad ma keeni karo kan waa inaa $2,047 bar aad sugan lahayd inaa 16,383.5 oo lacagta diamondka matrixka aad ka hesho weekligaagin uu kuusii dheeryahay maajinban qodob dhahayana aa noo dhiman yahay uu kuusii dheeryahay aa shaqaysato aa kaaga fiican diamondka darajada ka sareysa waxa loogu ordaysaa soo arranka markaa tahay lacag waa helaysaa laakiin darajooyinka lacagaheeda ayaa ka lacag badan oo markaa darajada ka sareysa aa gaadhid waa aragtaa way ka lacag badnaanaysaa leveladan waa iska kasii furfuraan leveladaas marka kuusii buuxsamaan kambanigu wuxuu ku siin doonaa inuu kusii badiyo darajooyinkaagii ama lacagaha matrix ahaan u heli doonto qodobkaas isagana waa ka gudbi doonaa matrixka loo yaqaano inaa calaa qof ka heshid 25 senti ama 0.25 senti qodobka labaad ee loo yaqaano matrixka asagana haddaa fahamteen 44 jaadka ha laygu soo qoro si aga gudbo asagana insha allah waa mahadsantihiin dhammaantiina qofka ku celi dhahayo waa matrix waxaa weye walaal macaan markaad 25 senti waxaad ku leedahay dadka kambani kusoo dhigo ama liidarkaagi kasoo daataan ama adigu keenso markay 2 bilood u dhammaato dadka ku hoos yaalo uu kambanigu kuu xisaabinaya calaa qof 25 senti baa ku leedahay hal qof hadduu ku hoos yaalo 25 senti oo qalkaas qofna 2 bilood u dhammaato lacagtii membershipkan iska bixiyo 25 senti ku leedahay hadduu 2 qof ku hoos yaalo 3 qof inta qofka ka hoostaada ku xisaabinaya lacagtaada 25 senti calaa qofka ku leedahay waana markuu dadka ku hoos yaalo u dhammaato 2 bilood haddaa u gudbo qodobkeena saddexaad ee matching bonuska loo yaqaano waxaaba isagana matching bonuska labada akoon labada lacag labadii qodob ee hore usoo dhaafnay weekliga ahaa iyo matrixka uu ka lacag badan yahay halkan waxaa ku qoran first start commission ee qodobka koowaad ahaa and matrix bonus matching bonuska are even bigger labadii qodob ee soo dhaafnay wuu ka weyn yahay sababta uga weyn yahay iyo waxaas dhan waa arki doonaa matching bonuska waa qodobka saddexaad ee kambaniga lacag looga sameeyo sharaxaad yar ka bixinaya kor ahaan ooga sharaxaya matching bonus waxaa waaye marka hadii halkan aad taagantahoo kale halkan aad taagantahoo kale waxaa kaa talaalan ilaa ugu yaraan 3 lugood oo kale kaa talaalan markaa tusaale ahaan marka usoo qaato lugtaadan koowaad waxay heshay matrix dhan $1,000 ay ku heshay $1,000 markay ku hesho lugtaadan koowaad lugtaadii labaadna waxay ku heshay $1,000 waxa ay helayaan waa matrixka markay helaan lugtaadii saddexaadna waxay ku heshay iyadana matrixka bilaha markii la gaaray matching bonus iyo matrixba labadooda bilo waa weekligii bis isbuuc lahaa saddexdan waxay ku heleen min $1,000 adigoo halkan taagan matrix waxaa heshay 2,000 iska soo dha iyagana 2,000 heshay markaa 2,000 hesho kale iyagana ay 1,000 heleen margin bonuska inuu ka weyn yahay labadii qodob hore ku sharxaya marka calaa qof lugtaadan ka hooseeya saddexdan qof ee ka hooseysa ee directly ku ah kunkunkan lacag ay heleen waxaad ku leedahay 50% oo ah kala bar lugtaan waxaa ku leedahay kala bar lugtaan kala bar lugtaana kala bar adigana waxaa horweysatay 2,000 marka qofkan $1,000 helay matching bonuska lama oranayo qofkan baa 50% ugu lehe 500 qaado qofkan 500 sii lama oranayo cause qofkan markuu helo $1,000 $1,000 matrixka uu wada qaadanaya adigana 50%kaaga waa lagu siinaya oo ah 5,000 inaad ka hesho qof lugtaadi koowaad lugtaadi labaad iyadana sidoo kale 50% ku leedahay inaad ka hesho iyadana 5,000 oo kale inaad ka hesho iyadana lugtaadi labaad okay lugtaadi saddexaad iyadana sidoo kale kunkeeda way qaadanaysaa 50%kaagi oo ku ahaa inaad ka hesho iyadana 500 kambanigu kaa siinaya marka adigu waxaa heshay 2,000 baad haysatay halaan isku soo dardarso saddex meel oo min 500 ah waa 1,500
laba kun hore u haysatay meeqa kuu noqonaysaa lahaa 3,500 ayaad helaysaa oo matrix imagine bonus isku jiro marka lacagta bilaha soo dhacda way kuu kala sheegaya kambanigan marka wuxuu ku leeyahay bishan waxaa haysa lacag 3,500 ah marka kusii dhufato lacagta korkeeda ku dhufato uu kuu kala saaray uu ku leeyahay 2,000 waxaa kaaga imaatay matrix 1,500 waxaad ka heshay imagine bonuska ka heshay marka margin bonus markii lagu sheegayo way ka lacag badan tahay weekly fast start commissionkii code soo marinay iyo matrix ku ahaa qodobkii labaad cause matrix marka aad u hesho 200 dollar margin bonuskan 1,500 dadkan ka hooseeya directiga ka koloma directiga uu sii bato ama dadka ka hooseeya sii bataan oo matrix ay fiican sii helaan adigana percentage-ka ku sii fiicnaanaya ilaa 5 lugood markay kuu gaaran oo lugtiiba 50% aad ku leedahay iyagana matrix fiican ay sii heleen marka lacagtaada way kuusii badanaysaa wayna kuusii kordhaysaa margin bonuska wuu ka lacag badan yahay matrixka markii lagu leeyahay sidaan oo kale waa wuuna ka lacag badan yahay matrixka margin bonuska markii la taagan yahay iyo weekly fast start commissionkii marka waxaa waaye isagana waa kana qodobadan fast start commissionka ama generationkaagii koowaad ama lugtaadii koowaad waxaad ku yeelan doontaa 50%. silver markaa noqotid ilaa waxaa lagu furi doonaa second generationkaagii ama generationkaagii labaad ayaa lacag lagaa siin doonaa oo ah 10% inuu company kaa siiyo margin bonus markaad gaadhid loo yaqaano darajada goldiga markaa gaadhid isagana wuxuu kuu furi doonaa third generationkaagii wuxuuna kaa siin doonaa ilaa iyo 5%. markaa gaadhid darajada ku xiga ee loo yaqaano platinum wuxuu kaa siin doonaa ilaa iyo generationkaagii afaraad wuxuuna kaa siin doonaa 5%. diamond darajada diamondka loo yaqaano markaa gaadhid asagana company wuxuu kaa siin doonaa ilaa iyo generationkaagii shanaad wuxuuna kaa siin doonaa 3%. marka intaanoo generation aad wax ka heshay markuu companiga wax kaa siiyo margin bonus aad ka hesho adigii matrix aa hesho lacagtii weekliga aa shaqaysato marka waxaa kuu soo baxaya dee waa lacag qayri caadi ah waaye companiga hadduu sida usii shaqeeyo ilaaha noo barakeeyo wax badan ayaan ka faa'iidnay dadkii shaqaystay iyo dadkii darajooyinka gaaray way ogyihiin inta cusub ee caawina daawanaysan waxaan rajeynayna iyagana insha allahu tacaala inay ka faa'iideysan doonaan hadday iyaga kasii faa'iideysteen ay fahmeen walaalahooda kale usii sharxaan dadka liidharada ku jiran dhammaantood iyagana in dadka walaalahooda usii faa'iideeyaan qodobkan waxaa waa isagana qodobada kamid ah qodobka live food ee lacag looga sameeyo companiga wuxuu ku fiican yahay kuma oranayo qodobkan weekliga keliya kugu xiray yani qofkeen lacag baa ku siinayaa bis haddaad qofkeeni wax lacag iguma lihid wax kugu xiray male weekly baa lu yiri ku shaqayso waxaa tiri weekly ma awoodo lacag ma keeni karo okay ka gudub baa lu yiri dad iska sug matrixkaaga sugo inaa la in companiga kusoo iska sug dadka alaal dadkaa hesho qaado lacagtu company kaasii qaado margin bonus aa ka shaqaysan kartaa qodobkii hadda ahaa waxaa u gudbi doonaa qodobkeena afaraad ee loo yaqaano retail commission asaga waxaa waaye inuu companiga daawo linkiga qofkii iska diiwaangeliya ee companiga lacag si toos oga gata inuu kaa siin doono 50%. 50% markuu kaa sii arrankii markaa tahay qofkii toos kaaga xiran ee daawo company ka iibsaday 50% uu kaa siin doonaa horanse markaa gaadhid oo kale ilaa iyo waxaa lagu furi doonaa 2 inaad gaadhid silver markaa gaadhid ilaa iyo waxaa lagu furi doonaa generationka afaraad hadduu lacag ka sameeyo daawo ka iibsado inaad ka hesho 5%. goldi markaa gaadhid ilaa iyo waxaa lagu furi doonaa generationkaaga lixaad daawo iibsado inaad ka hesho 2%. platinum sidoo kale diamond markaa gaadhid ilaa darajada u dambeysa marka qodobkan waxaa asagana daawo haddaa dhaado dad ma keeni karo matrix ma sugi karo margin bonus ma rabo waxaasoo dhan ma rabaan companiga waa ka mid noqonaya waxayga waa ka qabsanaya keliya waxaa ka shaqaysanayaa daawadan markaa mimbar tahay oo kale daawada companiga wuxuu ku ogolyahay 50% inuu kaa reebo tusaale lacagta meesha ku qoran oo kale markuu kaa gaday companigan waxaa waaye 50% kuu reebaya micnaha tusaale ahaan markii daawo uu gadayo kale $10 markuu gadayo adigna member aa ka tahay companigan 50 kaa reebaya $5 keliya ku iibsanaysaa markuu qof aad keentid oo linkaaga si toos usoo raaco uu company wax ka iibsadana asaga member ma ahan banaanku ka imaaday company wax ka gadanaya keliya linkiga uu ka gadanaya $10 laga siinayaa $5 ada iska leh koos linkigaagi daawada ahay ayuu companiga soo raacay uu wax ka iibsaday marka qodobkaas asagana daawada waaye
haddaa daawo ku shaqaysanayso kale wuu ku anfacayaa. qodobkeena ku xiga ama qaabka shanaad ee lacag looga sameeyo waxaa waa isagana influencer bonus oo loo yaqaano daawo. isagana sidoo kale daawada haddaa fahansan tahay oo kale kambani lacag badan uu kaa siinayaa. daawada waxaa waaye marka kii hore waxaa kusoo sharaxnay 50% inaad ku helaysid. marka qof seller bermonti hadduu gato kale 2,500 commission dheeraad waxaad ku yeelan doontaa ama additional dheeraad waxaad ku yeelan doontaa 10% oo kuu noqon doonta 60% oo ah 50% hore ee kambani kuu ballan qaad inaad ku leedahay wuxuu kuugu dari doonaa 10%. waxayna kuu noqon doontaa 60% inaad kambaniga ku yeelato commission ahaan. markuu qof ka iibsado kambaniga 5,000 lacag dhan ama daawo uu kaga iibiyo wuxuu kaa siin doonaa 20%. inta kasta hore ugu lahayd 50% ku darso 70%. marka qof ka iibsado kale $10,000 wuxuu addition ahaan kuu siin doonaa 30%. hore waxaa u haysatay 50% ku darso 30% 80%. 25 markuu kaa siiyo kale 90 oo ah 50 hore haysatay iyo 40 oo ah additional ama dheeraad commission inuu kaa siiyo. 50,000 markuu gaaro kale 50% ku ogol yahay. ugu dambeyn waxaad ku lahaan doontaa kambanigan inuu kaa siiyo 100% oo dheer commission ahaan aad ku yeelan doonto. ama daawo qof gata intaas 50,000 oo kale markuu daawo ka baxsado kale linkigaaga uu ka socdo inuu kaa siiyo 100% oo ah daawada lacagtuu ka gatay inaad kala qaadataan adiga kambaniga. marka qodobkeena ku xiga diamond and garoon diamond baa la isagana qodobka 6aad ee kambani lacag looga sameeyo waaye. diamond pool markaad taagan tahay ama darajada diamond poolka markaad tagtid waxaad ku yeelan doontaa percentage dhan 2% inaad ku yeelatid kambaniga dhammaan wixii ka dhacay sales ha ka dhaco ama waxa lagu kala iibsado ama dad hala diiwaan geliyo waxaad ku yeelan doontaa 2%. markaad degtid darajada loo yaqaano crown diamond waxaad ku yeelan doontaa 0.5%. wax walba oo kambanigaas ka dhex dhaco ama seel hala iibsado ama daawaha laga dhex iibsado product ama dad hala diiwaan geliyo waxaad ku yeelan doontaa 0.5%. marka dad ayaa wuxuu ku leeyihiin markaa kambaniga soo galo anigu inaa qof soo diiwaan geli keliya dadka igu xireen kambaniga dad laguma dhex gado. productiu gadaa daawooyin buu iibiyaa. haddaa productyada ka shaqaysan kartid oo kale welcome. haddaa productyada ka shaqaysanaynin waa ilaa qaababkii aan soo marnay dhan oo kala dubnaa ku kala shaqaysan kartaa ayagana mid allaale midka aragtid kambanigu mid kuguma xirayo. marka intaasaan kusoo gabagabeynaya insha allahu tacaala zoomkeeni caawa publican ma aha inaa wax badan faa'iideyn baan rajeynayaa. haddii la ifahmay inta qodobaan soo sharxay si aan hal mar usoo xirxiro aan ugu wareejiyo injineerka insha allahu tacaala hal mar 5 hal isiiyo. maasha allah dhammaantiina waa idiin mahad celinaya insha allahu tacaala. intaan ku kulmi doono zoomka xiga ama aan idiin soo jeedin doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan dib ugu wareejin doonaa injineerka maxamed jaamac. waxaan leeyahay welcome insha allahu tacaala. mahadsantiin dhammaantiin. aad iyo aad baad u mahadsan tahay leader Sundus Cabdirashiid oo ku sugan Nairobi. maasha allah ku dhiirigeliya oo xiisadan inaba caadayn caawa soo jeedisay iyadoo weliba waqtiga aad iyo aad u ilaalinaysay haddana aan waxbaba ka teginba. maasha allah ku dhiirigeliya hambaliya dhah ta aan rabno marka waxa weeye qof walooba Sundus imise bilood baad nala joogto horta ani waxaa kusoo biiray bishii 7 25 marka waxaad joogtay 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 maasha allah dhah maasha allah dhah. haddaba adiga su'aalku weydiiyo qof walba zoom ku jira walaalaha memberska goorma kusoo birteen inta isdiiwaan gelisay inta cusub sheegi maayo inta memberka ay goorma kusoo birteen imise bilood baad joogtaa ibrahim 7 bilood naadiya 8 bilood axmed muuse 9 bilood axmed umiyada 2 bilood anaa 9 jooge mees la bilowna muuse xasaasi 2 bilood muna 20 maalmood sawda 27 casho maxamed 4 bilood maxamuud 1 bil waayahay qof walowba waxa aan kaa doonno waxa weeye sida ay leader Sundus ugu raaxaysanayso ma arkin tabtaasoo kale ugu raaxaysato oo sharax karaysid diyaar mowta ha tabtaasoo kale barnaamijka waa inaad xifdisaa
gebigiisaba marka qof kastoo markaas negative kuu sheega ma iska celin kartaa dadka negativeka ma iska celin karaysaa yes of course haddaad baratay barnaamijka ha haddii kale oo aadan baranna waa lagaa carsanaya soo ma ha kabaad ka cararaysaa maanta waxaan arkayey macal cabdiraxmaan jaamac hadduu khad ku jiro uu ii sheegayey macal cabdiraxmaan ma ku jirtaa macal cabdiraxmaan jaamac ku jira ninkii odayga maraykanka bilqisays nala wadaag dad badan bay dhiirigelin u noqonaysaaye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamaya dhammaan asxaabta liifgood bacda salaan saaka nin odaya sayrina dhex martay ninka odayga anigu iyo injineerkii waxaanu bilownay bishii labaad isaguna wuxuu bilaabay oo liifku ku soo biiray bishii saddexaad bil kaliya markuu lacagtii bixiyey next month waxaan ku yiraahdaa waliba bal akoonku waa dhacayaa lacagtii bix ninkaasina inaan dee markaa u tuhmayno ma aha inuu $10 ee akoonka lagu active garaysanayay weyn karaa ama waayey wuxuu yidhahdaa haye walaala waa active garaynaya lacagtii halkan kama bixin karo qof Soomaaliya joogaan ku yidhi u diray qofkaasaa lacagtii bixinaya Samsung u diraya waan sugaa warqofkii lacagtii meede laba casho kadib ku soo hooyo qofkii lacagtii wuu culay qof kale la diraya lacag kale sorry way dahday taas qofkaas lacagta way iga culay bal qof kale la diraya adigu dhowr iyo 10 cashay u qaadatay inaan ninkii ka daba wareego marba injineerka uu sheegay waxa ku raadin ninkan injineer aday keentay aad ugu tiirtaan taabi halkaas joog lacagtii waa ku adkaatay inuu bixiyo maxaynu sameynaa buu yiri hadduusan ninkii raalli uusan active akoonkiisa active garaysanayn maraaqa qaab show akoonkan aan active garaynayno oo aan ka barayno ninkii inuu active garaysto laba qof aan markaa uu saa u diiwaan galiyaba ku xidhna oo laba qof baa u diiwaan gashanaa markaa may jirin option kan ah in lacagta lagula baxo credit wallet lacagta lagula baxay qof hadduu dibadaha joogo kale bankigiisa kula baxo oo iyana process ahayd ama inuu kula baxo cryptocurrency bitbay marka labada option kaliya markaa diyaar ah credit wallet ku active nooma ahayn anigu waa iska ilaaway gawaay akoonkiisa gacanta ku haystay inuu dhacayo baan fiirinayay in lacag ugu jirto ma dhaadanayn ninkii saas faraha kaga qaad saaku markay la soo xiriiray isagoo yiri intuu show soo baraarugay oo gabadh ay daris yihiin oo mala tiktoker ah way arkeen gabadhii oo mala ku boorisay inuu liifku soo galo wuxuu bar hore baalka iska diiwaan geliyo akoon ma ku lahaa wuu warwareysay gabadhii waxa ku jira warniyow baalkaas waa cajaa'ib weeye wiigi $400 ka sameeya marka dad garanaysa qof tiktoker oo tiktok asxaab badan ku leh waa sameyn karaa inkii soo ordayo soo galay wuxuu yiri akoonkii barigi taleefankana waa iga halaaba username-kii password-kii ma xasuusto niyow caawi waxaad samaysaa magacayga saddexan gmail-kii taleefankii bal wixii baa kuu soo dirayaa bal akoonkii la raadi alla waa ogaanaan hayo uu Yusuf garaysanaa haye waan ku yiri username-ka ma xasuustaa may waan galay waan fiiriyey waan u diray markaas yiri waa mahadsantahay hadda maxaan sameeyaa waxaad samaysaa waan ku yiri $10 bixi ormee akoon kale aan samaysan ma samaysan karaaba oo ku ah intaad $50 kala bixin lahayd $10 kaliya iska bixi wixii team abuuranayso abuuro markii uu soo xasuusto inuu barigi laba qof la hoos dhigi jiray lacagteedii laba bixin iga soo saar waan fiiriyay history-ga fiiri meesha lacag history-ga kuma qornaba annaga ku yiri waliba bala akoonku de bishii saddexaad ilaa 7 bilood 8 bilood ka soo wareegtay mala wuxuu waa la tirtiray naga daa haye uu yiri iga tagay uu soo noqday wuxuu yiri inuu bishii waan active gareeyay akoonkii waa ay active maxaan kala sameeyaa wuxuu yiri dad diiwaan gasho team dhiso hore u soo marka mar walba haddaad caawinad baahatana garabkaagaan abaar baan iska fikiray call history-ga waan baare labadii $20 labadii qof ee 25 meel lacagti lagu saaray oo bayd ah waa ka waayay meel transaction lagu sameeyay waa ka waayay marka labadii aan ka waayay baan akoonka dib ugu noqday transaction-kii baan fiiriyay mise uma active garaysna credit wallet oo xagga sare saaranta intaan u active gareeyay waxaan ku yiri warooday insha Allah lacagtaas $50 waa kugu jirtaa khamiisna ku soo dhacaysaa credit wallet waa ku active gareeyay dee la soco insha Allah marka bal qiyaas bishii saddexaad iyo afraad iyo shanaad ilaa 10aad 7 bilood hawada ka maqnaa hadduu arkay in kamari faa'iido iyo dhaqaale laga sameyn karayo hadduu ku soo baraarugay marka insha Allah marka hore waxa laga yaabaa dadku inaysan saa ugu baraarugsanayn
ay gadaal kala macaanaato marka qof walba akoonku waa ka hadduu akoonadaadii hore ahaa ku dadaal inaad bil walba $10 aad iska bixiso haddii aad is leedahay waa ilaaw kartaana waa $100 madaxa u siidaa sanad kadibna calafkaaga ka qaad saasan dhalinyarada ku boorin lahaa ninka odayga aan intaasaa maanta nagala gaadhay waan ku salaamaya engineer aad iyo aad baa u mahadsan tahay mahadsanid u soo qora leader macal cabdiraxmaan jaamac qisadaas yartaana waxa weeye maalin kasta ayay noocaas oo kale ayna soo martaa waa qof barnaamijka intuu soo galay haddana ka cararay fudayd baa dadka lagu salayso ma ogid barnaamijka uu soo gelayaa uu isdiiwaan gelinayaa lacagta uu bixinayaa marka bisha dhammaato kibiisa qaadanayaaba maba sugi karaba marka qof walba maxaan kula talinaya war adkayso geesinimada lagu sheegaya waa maxay waa in yaroo cagaha dhulkaad ku haysid weeyaan weliba kambanigan wuxuu cajiib leeyahay waxaaba lagu yidhi cid ba ha keeni haddaa aragtid oo dawa ha iibin laakiin $10 bilowba bixi war $100 raadso hal mar $100 iska bixi dabeedna ishaa keliya ka daawaba haddaan isfahanay samayn haddii kale waxa weeye 7 bilood kadib haddana soo noqon 7 months kadib soo noqon waxaa laga yaabaa walaalaha caawisuunka loo sharaxayo inay ku jiraan qaar 9 bilood ba nala socday oo 9 ahaa oo weli isdiiwaan gelin baa dhici karta intaana daawanaya laakiin barnaamijkan qofba qofka ka soo horgalo uu ka jaanis fiican yahay sababtu waa maxay waa positionka waa godka aad degaysid weeyaan ma maqasho godkaasaan degay godka weeyaan marka waan soo gabagabaynayaa qof walba insha Allah fadhiga ka kac haddaad member tahayna akoonkaaga ilaasho weliba haddeerto maalmihii u dambeeyey bisha lagu jiraa bisha waa dhammaad waa markii la xisaabinayay matrixkii iyo matching bonuskii iyo commissionada kala jirayay weeyaan marka isku day inaad akoonkaaga active garaysato akoonkaaga iska lose garayn haddaan weli isdiiwaan gelin soo diiwaan geli oo tiim ka mid noqon insha Allah ballankeennu waa waxbaro shaqayso hormis hore ka haro zoom-kan intaasaan ku saafmeeri doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu